giba kala duwan oo qoraaygu waxa weeyaan mid bulshadii ku soo kordhinaya wuxuu yara dheeraa oo u faa'iideynaya midna waxa weeyaan mid wax baranaya oo loo faa'iideynayo oo mid ka faa'iideysanayo wax akhriska muhiimadda wax lagu qoray dhalisa qoraalku oo wax akhriska qofku hadduu hal page saa u akhriyo waxa maskaxdiisa soo galaysa inuu laba line ama wax ka qoro qof walba garanaya casharada qofku markuu akhriyo su'aalu ka diyaariyo oo qoraya waxbuu ka akhriyaa note buu ka diyaarinaya waa sidaas uu qoraalka la sheega ta kale ujeedada aniguna kale ismaankii sheegin waxa soo dhan doontaa walaadan isu kii sheego usfaanaya wada dhan doontaa laakiin idii joojin maayo waxa weeyaan horta aniguna waxaan tareen yar baa iska jiray horta markii hore waxaan qoray book adoo ila qosol la yiraahdo sheekoon yar oo qosol ku jiro ka hal sheekan idin dambaysiin doona taas waxa ka damba kan imika soo socda insha Allah idin soo wado oo imika isku dubareedkiisa la wado waxa uu ka hadlayaa aafada tahriibka ayuu ka hadlayaa magaciisana la yiraahdo talo hore baroor male كان إن شاء الله وضعك دونتان وقتها يرأوي وندي سوكوبيا لكن وعقلنت عن ندي وضعي مهم كاي وحويان سيد أن وجود الهين أرضية وحقرسك يقرالك برنامج كان وضعنا وشددي سؤال كاتها إن شاء الله وحرجينا يا إنه ده نقضى سكولك وحن ده سكولك إرشاد قرح دي سيا أرضية وصدا يقصها هلانيت وقرأت أيها كم مقطع سوي حقرسك وهلين إن شاء الله وحرجينا يا إن برنامج كان أنقضوا الناس يقولون نقضى كي وقف عنا كل هذا كان يسكو بديي وحن يسكو سود دمبيسين دونا هالشيكو ما دام القصة لي برتين ألقى شيكنا وحن نقول نساء متبقي هراء إلى قصة الكتشرتي شيكا سنة وحرجينا يا إذا أنتينا تاجنا إذا دولك فرفريسن أيه رجينا أديان كيو كنت بينتا شركة وحويان كل أرضية قاروي مقلينه في صلاة مقشكي وحويان مسجد كي يقول والله لا أما مساجد كي يقول والله كان مساجد كان أدورت حرارة بقية لا هو مساجد عانا مساجد كان تبى بدن كسرات عشاء وحلقوه عادي جري أضياشة دليرتو مي جرين أضياشة لقوه عادي جري كده واحد عادي يدو لو عادي يو هبين هذا كم يدا واحد مدرش واحد مساج كفدي أضي أدو علاش حنونس أضي علاش حنونس سبب فدي كده هبين كايس الهبين كواحد ماشي بسوها جاي ويليرو دليرو أدو يربك سوها جاي أضي يبو كرف فرست ماشي هذا واحد قد عياجا هذا وضعي راح علاش حنونسي هيا در إلهي كجسيبتي وضعي راح هذا وضعي اسمع وين كرايو وعيب باكوي مرسا واحد كلامك سويه وقروا يو كي رايك فيديو بادر بحاو كل وريج أيا كي را إنكار كود عذي لو دقاتيو الباب كوكله هذا كي را وعذر ودقوا كترن صلاة يدو لسيقليو أي وضعي دوسا كواجي ولا حظي هاي صلاة أرض كصباح إذكر بدين مايو كل وحي رادا وحن وقت قصين دورا لبضي معلن منين ذا وعن سورة تنيا حريريا فصل كتوسي aad buu mahadsan yahay qoraa Amiin Xasan Cabdi Madar oo xagan u soo boqday iskuulkeena Al-Shaad Secondary School isagiyo qorayaashiisa kala la socdaaba iminka Amiin waan ka qornay balse waxaan sugaynaa qorayaasha kale waxaan ku soo dhaweynayaa Muna Axmed Cumar oo iyadna xagan weeraheeda ka wada doonta
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم أرضي درير الشهدين موناكسنتين ugu horeyn ilaahay baa mahad leh halkan isku keenay waxaan idinka raali gelinayaa qadarkii aad noo samarteen aan soo habsaanay maanta waxaan xasuustay runtii barigan ku jiray dugsiga sare sidii naas oo kala ahaa maalinta sidan oo kale xafladu jirto waxaan ahaan jiray sida inaan ka xidhiidhiyaha barnaamijkan ahaan jiray waliba sanadkii u dambeeyay iskuulka Nuuridiin 5 sano ka hor 5 sano laga joogaa idin maleekiya oo idinka weynahay in badan waan iska gaabanahay une 5 sano laga joogaa muddadii aan sidii naas oo kale ahaa waxaan xasuustaa sanadkii u dambeeyay foofoorka ahaa waxaan isnidhi kulley idinku bood samaysaan maalinta barnaamij maalinba class baa u leh soo maaha maanta class baa u leh maalinta classkaygu waxaan ka sii fikri jirnay oo jirnay sideebad wax ka duwan u keentaan kadib sanadkii u dambeeyay foofoorka halka imika halkan barnaamijka laga xidhiidhanayo hal studio leey waxaan sameynay 2 studio halkan qof baa istaagay halkaana qof baa istaagay kadib ardayda waan dawaqnay anu halkan soo istaagay ina kalena halkaas soo istaajinay markaas halkan qofka uga yeelay imka waxaan ku soo dhaweynaya hebel markaas aan qofka u yeeraa haddana waxaan ku wareejinay studio number 2 markaas ardayda haddana dhinaca soo wada jeedsataa kadib magacii baa ku dhago markaan iskuulkii ka baxay waxa la oran jiray studio number 1 ayaa la bixiyay runtii xasuuso aad u qurux badan ayaan maanta galay oo aan dugsiga sare ku soo qaatay xilliga dugsiga sare lagu jiro waa xilliga nolosha ugu wanaagsan ayaan oran karaa ardaynimadu maaha ciyaar ardaynimadu waa wax aad u qurux badan aad baad u mahadsantihiin sida wanaagsan ee dhagaysanaysaan aan u soo daadago mowduuca magacaygu waa Muna Axmed Cumar waxa aan ahay wali ardayad baan wax baan bartaa ardaynimada lagama daalo ilaa la gaboobo la ciro ay dadka ka soo baxdo waa la wadaa ha joojinina ardaynimada wali ardayad baan ahay sanadkii dhaweyd baan jaamacadda Hargeysa ka qalin jabiyay waxaan dhigtay kulliyadda sayniska anigoo saynis bartay haddana ruuxdayda waa arts waxaan u badanahay qoraalka hal abuurka ayaan aad iyo aad u jecelahay waan taageeraa waxaan laga yaabaa inay qaarkiin isweydiiyaan oo maxay qofkan labada wax ku hadlaya runtii qaar badan oo idinkeeda ka midaba waxa jirta in waxa ay bartaan maaha wax kale ay jecel yihiin waana la arkay adduunyada in badan ayaa la arkay dad wixii ay barteen wax ayna baran kaga wanaagsanaaday runtii dadkaan waxaan kula taliyaa waliba ardayda sidiinoo kale waxaan kula taliyaa inay raacaan quluubtooda iminka qof walba waxa laga yaabaa inuu wax jecel yahay midkiin waxa laga yaabaa inuu dhakhtarnimada jecel yahay حتى أوحى لقيا بمتكين إنه شعلي إنه كبد عياره وحد نقطة ما بين بقى إنه ما كذا هذا بقى أنا وحنا عن كل تريار ده أنا هذا نيدي نراعى وحقات شعش هنا النقطة قلبي جا كشرة كاس ونقطة وهي وح كله أوحى لقيا بين والدك كل هذا وح النقاط بيتنا لو خصبة لكن وحد كجونا سنان سا أو تقول جالسة مركعت قلبي جا راعده مركع لكن حكوا الرسام وأنا تسوقاته وحد جعشين waxa laga yaabaa in qaarkiin waxaan waliba aad ula hadlay ardayda foofoorka waxa jirta marka sanadka afraad laga baxo ardaygu wuxuu isweydiiyaa maxaan galaa tolo halkan u fadhiistaa tolo maxaan galaa caafimaad baan bartaa engineering baan bartaa waxa laga yaabaa inuu ku dawaqo ma aha inaad ku dawaqdo naba runtii ardayda reer Soomaaliland badankooda arrintaas way ku dhacdaa wax weeyaan qof walba wax buu jecel yahay waxa aad jeceshahay un ka dhabe bas ha ku dawaqin maxaan bartaa magacaygu aan idin sheegay waa Muna Axmed Cumar waxaan qoray buug la yiraahdo baadidoon runtii dadku waxay weydiiyaan maxaad baadi goobaysaa waxaan ku idhaahdaa anu waxba baadi goobay buugayga ayaa wax baadi goobay anigii buug ma han kala laba qof ahayn kala laba manihin buugaygu wax kale ma baadi goobayo in badan waad aragteen waxaan idhaahdaa wuxuu baadi goobaya wanaag iyo wacnaan bulsheed waxa uu baadi goobayaa nolol qurux badan nolol horumar leh waxaan rajaynayaa inaad akhridaan waxa ku jirta aan soo qabanayaa buugayga hal sheeko halka sheeko waxay ku saabsan tahay sidoo kale dugsi bay ku saabsan tahay sheekada waxa la yiraahdaa yarkii tuulada wali inaan tuulada ka yimid iskuulkeena muhiim waxa la yiraahdaa sheekada yarkii tuulada sheekada waxay ku bilaabmaysaa inaan surwaal gaaban gashan madaxa saliid ka soo buuxiyay maxay tahay miyiga ka yimid oo iskuulka la soo qorayo ardaydu saasay u eegaysaa way yaabeen kulli waan iska garanaynaa sida inuu dacaydeen soo maaha gaar ahaan inamada
xaggaa idinkama maro ardaygii iskuulku soo gelaya waa xilliga form 1ka ardaygu mii buu ka yimid kalaaskii koobaad ugu horeynta kalaaskii soo wada fadhiya ayuu albaabka ku soo furaya ardaygii kadib macallinkii saasaa loo wada eegaya markaasaa lagu odhanaya ma galaaskaa tahay markaasuu odhanaya tuuladan ka yimid su-aalaa la weydiinayo ka jawaabay ardaydii way ku wada qusquslayaan runtii ardaygaas wuxuu la kulmayaa dhibaato fara badan buu la kulmayaa waa la dacaayadeynayaa waxaa loo bixinayaa reermii soqodhii kii reermiiga ahaa waxaasaa loo wada bixinayaa ugu dambayn ardaygii wuu kifaaxayaa 4 sano isagoo macala reermii ah ayuu la dhiganayaa ardaydii wuu dhammaynayaa waxbarashadii weliba meel sare ayuu nolosha ka gaadhayaa runtii waxaan dadka dareensiinayay yacni bulshadeenu sida ay qofka liidata aanay ugu naxariisan sidoo kale buugga waxaa ku jira sheekooyin ka hadlaya in loo naxariisto xayawaanka in la daryeelo buuggu waxa uu daha ka qaadayaa waxyaabo badan oo aynan daadanayn oo aynan dareensanayn wuxuu buuggu dadka u rajaynayaa horumar Soomaaliya